kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii kulan wareedka warbaahinta magan oo isbuuciiba aad ka maqashaan xilligan oo kaleeto. kulan wareedka magan waxaan ku soo qaadanaynaa dhacdooyinka arrimaha siyaasadda, warbixino xiise leh, sugaan la soo xulay. waxaa barbaryaal xubinta isboortiska oo ka hadlaysa kulamadii ugu dambeeyey ciyaaraha caalamka. intaasoo kulansan ku dhegayso kulan wareedka warbaahinta magan, kalena soco beejkiyo janalka idaacadda raadiyo magan. waxay magan u tahay dhammaan mujtamaca soomaaliyeed. barnaamijkeena isbuucani waxaan ku soo qaadan doonaa qodobo kala duwan oo ay ka mid dowladda Soomaaliya oo ka walacsan xaaladda cakiran ee kala dhaxaysa wadanka Kenya. golaha wasiirada ee maamulka Puntland oo war ka soo saaray shaqaaqadii ka dhacday gobolka Sanaag, ciidamada Galmudug ee taabacsan kooxda Al-Sunna oo isbuucani ka hortagay shaqsi la sheegay inuu miidaameysnaa. sidoo kale warbixinadeen waxaa ka mid ah xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo shaaciyay in baarlamaanka Soomaaliya la horgeeyay mooshin ka dhan ah ciidamada Kenya ee ku sugan dalka Soomaaliya. markaliya barnaamijkeena kulan wareedka warbaahinta magan daafur barnaamijkii naba amaan aad u macaan. ogaaday waa imaamkii ambiyado asal weeyo anwar baa laga abuuro, ikhyaar weeyo ilaahay baa ammaane, allow nogi xabiibka oon ku noo qabay. bashiir weeyo ilaahay baa boqradayo, badarkaysaga anwarta baraada dheero, shamsada barqina bilicda lagu soo masaale, allow hayga baajin baahidu waa xaggiise. tirig weeyo tubti dintii furqaano, waxaa taa jiray ninkii taladiisa yeelo, ninkii taag daranada taageera siiye, tilmaan quruxsani xabiibow hayga taginay. محمد يا رسول الله محمد، محمد يا حبيب الله محمد، مغانتادنا هيا يا محمد. جوهر ويو حقا لو سو جيهيو، جبريل باوضي جوابتو بيريو، جركيسونا واودقون لغو جيل بحايه، allow nala jooji jaahisaan jeclaane. xumaan malaho ilaahay baa xallilayo, xaqii iyo baadilkii buu kala xadeeyo, ilaa xurmadiisa naar haynaga xoreeye, xasuusnaado xabiibka kullay jeclaada. muxamed yaa rasuulallah muxamed، محمد يا حبيب الله محمد، مغانتادنا هيا يا محمد. رحمة باتاي مولو خلقي صدريو، نيكي كرمي بان حارس رجينو، رفيقني مذاذو والراحة ويني، ريلا هاقيو وجيغاغان رمناي. سيدكي أو سلام الله عليك، سكراتكي يسوى شبانوغ سهلو، سوديغا كوليلك يوم كلا سوغا يهيي، سفكاغا نراعيو سينهاي غتغيني. محمد يا رسول الله محمد، محمد يا حبيب الله محمد، مغانتادنا هيا يا محمد. وحلو كودايو كراهبا كان لهينو، كسيا كما كان حماني كلبا كايمانو، كيدكي مؤمنين تاندبكا كاغا كورينو، مالينتا كوليلكا بدنا كفالا قاداي. محمد يا رسول الله محمد، محمد يا حبيب الله محمد، مغانتادنا هيا يا محمد. سيدكي يو سلام الله عليك،
sakaradkiyo su'aashaba nooga sahlo doodiga kuleelka yoomka la soogan yahay safkaagana raaciyo sinahay iga taginay محمد يا رسول الله محمد محمد يا حبيب الله محمد مغانتادا نهاية يا محمد مغانتادا نهاية يا محمد مغانتادا نهاية يا محمد waa tahay dhageystayaal haddaanu halkaa kaga tallaabno ammaankaasi aad ku macaan oo isla markaana ka hadlayay ramadaanta ku tacalluqay haddaanu halkaa kaga tallaabno markaan waxaynu sii gudagalaynaa qaybihii barnaamijkeenii kulan wareedka warbaahinta magan oo toddobaadkan idinkugu heyno warbixino kala duwan hase ahaatee intaynu warbixinada gudagalin waxaan idiin soo qabanaynaa maqaal la magac baxay calanka Soomaaliyeed cidna gooni uma lahan waxaana maqaalkan in qalinka u qaatay abwaan sir cajiib waxaana inoo soo jeedinay wariyaheena Cumar Diish calayo buluugi xidigta cadaanki dhexda kaga cabirantee isagii xorriyadeed lixdankii ku caanbaxo insha Allah umar baad curano ربي سوعلي عدودادو سيدا عروديو وبحردنا دعفي دونتا إسيقاقي مركال سوعلي عركا كوفوري دولكو ودعاقار نقي عولاد لغا فيوبا إن شاء الله مرباد عرانو ربي سوعلي عدودادو سيدا عروديو وبحردنا دعفي دونتا calanka Soomaaliyeed cunsurad ma yaqaano cidna gooni uma laha ceeb ka weyn ma jirto in calankaagii laga taagay deegaanadaadii aad haddana maanta si cunsuriyadnimo leh aad kula dhaqanto qof xiran ceeb ka weyn ma jirto in calankaadii aad xeriyada gumaysiga kaga xorowday maantana aad u aqoonsato mid dhiigaaga lagu qabo aan ku bilaabo maqaalkaygan kan waxaan kaga warrami doonaa si kooban taariikhda calanka Soomaaliyeed iyo cidda samaysay sidoo kale calanku iyo gooni u yahay hal gobol mise wuxuu ka dhaxeeyaa Soomaali weyn isweydii haddaa tahay wadani nab ah oo Soomaalinimadu ku weyn tahay calankan buluuga ah ee xidigta shanta gees leh ee cadaanka dhaxda kaga qotonsan tahay waxaa sameeyay Maxamed Cawaale Liibaan oo ahaa halgamaagii hidisay suuraynta iyo midabeynta cajiibka leh ee ku hal abuuran maradan calanka ah halgamaa Maxamed Cawaale Liibaan oo lagu xasuustay inuu ahaa nin Soomaalinimadu maqaam wanaagsan kaga taagneed haddana maxaad ka xasuusataa taariikhda rasmiga ah ee calankan Soomaaliyeed laga sameeyay markii ugu horeysay calankan Soomaaliyeed la sameeyay waxay ahayd bishii Oktoobar sanadii 1954 haddaba calanka Soomaaliyeed midabadiisu maxay muujinayaan calanka Soomaaliyeed wuxuu ka kooban yahay laba midab oo ah cadaan iyo buluug waana calanka ugu quruxda badan adduunka marka loo eego dalal badan oo isku dayay inay la tartamaan soo saartaan calankan mid la mid ah oo quruxdiisa waana calanka Cawaale maskaxdiisa ka keenay calanka Soomaaliyeed ee buluuga ah ee xidigta cadaanka dhaxda kaga qotonsan tahay wuxuu ka turjumayaa dhammaan deegaanada ay dhulka Soomaalidu degto oo la isku yiraahdo shanta Soomaaliyeed waana astaanta qofnimo ee lagu yaqaan markuu qofku xirto haddaba Maxamed Cawaale Liibaan calanka Soomaaliyeed ma wuxuu u sameeyay gobol ama qabiil gaar ah mase wuxuu u hindisay Soomaali weyn sida ka muuqata haybada calanka Soomaaliyeed ma ahan calan ay leeyihiin gobol ama qabiil gaar ah taasna waxay ku tusinaysaa astaanta guud ahaaneed oo ka wada dhaxaysa dadka Soomaalida ah waxaase ceeb noqotay kadib markii gobol kamid ah Soomaalida laga mamnuucay calankii Soomaaliyeed Hargeysa waa magaaladii ugu horeysay ee laga taagay calanka buluuga ah maantana waa magaalo calankeedii laga dhigay mid sun ah haddaba asbaabtaasi maxay tahay waxaa keenaya Hargeysa laga mamnuuco calankaasi waxa ay tahay inkastoo Hargeysa ay dhan aysan diidaneen calanka balse waa qaar kamid ah kuwa talada maamulka haya oo calanka u sawirtay markay arkaan duqeyntii 1988 diyaaradihii kacaanka ay ku rusheeyeen deegaano badan oo gobolada waqooyi ee dalka kamid ahaa isla markaana calankii Soomaaliyeed ku xardhan waxaana markaasi col ka goosteen
calanka iyo ciddii xiranba iyagoo markaa ku xasuusanaya dhibaatadii kacaanka uga fuliyey deegaanadooda balse yaa isweydiiyey in calanka uusan ka turjumaynin kaliya kacaankii duqeeyey waagaas uu yahay calan hortii jiray oo uusan calanka ahayn mid siyaad barre sameeyey hase ahaatee uu yahay calankii uu sameeyey dhinaca waala liibaan muhiimada qormadan ayaa igu dhiirigelisay inaan qalinka u qaato calanka Soomaaliyeed inuusan ahayn calan goboleed inuusan ahayn calan jabhadeed inuusan ahayn calan qabileed inuusan ahayn calan kaligii talisa oo leeyahay balse uu yahay calanka ka wada dhaxeeya ummadda Soomaaliyeed ee afka Soomaaliga ku hadasha kuna nool geeska Afrika iyo adduunweynaha marbay dhici doontaa calankan oo si xorriyad ah looga taagay gobolada shanta goboleed marbay dhici doontaa calankan oo dunida ay tiraahdo waa astaanta Soomaalinimada iyo israaca isirka ina Soomaali Maxamed ugu dambeyntii waxaan leeyahay diidayo calankaaga darxuma ku dambayso diidayo calankaagii daciifnimo kugu tahay diidayo calankaagii waa ku doqonnimeeyo god waa tahay haddaan halkaa kaga tallaabno warbixintii Cumar Diyeeshe uu ku eegayay in maqaamka calanka Soomaaliyeed uu ku leeyahay in dhulka Soomaaliyeed waa taad buu mahadsanyahay Cumar Diyeeshe in markana in warbixinta aanu soo qabanayna ayaa ah dowladda Soomaaliya oo ka walaacsan xaaladda cakiran ee dalka Kenya kala dhaxeeya in wasaaradda arrimaha dibadda federaalka Soomaaliya oo bayaan ka soo saartay xiriirka sii xumaanaya ee kala dhaxeeya dalka Kenya waxaana bayaanka ku qornaa in dowladda ay ka xun tahay dadkii xildhibaanada ahaa ee dhawaan lagu xanibay garoonka diyaaradaha Jomo Kenyatta iyo duulimaadyadii tooska ahaa ee Nairobi oo ay hakisay dowladda Kenya ina sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda ayaa muujisay inay ka walaacsan tahay xiriirka sii xumaanaya ee walaalaha Kenya waxayna ka dalbatay in la qadariyo lana xushmeeyo wada noolaanshaha labada dhinac ee soo jireenka ahaa hadalka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa muujiyay bisal diblomaasiyadeed oo ka muuqda Soomaaliya iyo in aysan marnaba kala maarmi karin walaalaha Kenya iyo Soomaaliya Ariyaane maxaad cirka ka eegaysaa baan kuri cirka maxaad ka dayaysaa adeerow cirka waxaan ka dayayaa daruurta iyo hogashi iyo saanta u jeedo oo roobkii hogasha tilmaamay baan eegayaay wax kala maad ka eegaysaa waxba kama aan eegayn oo maxay tahay maradan buluug ay kugu jirta arniyo maxay tahay adigu ummadda baad ku mashquulaysaa maxay tahay shaqada maanaad ii soo shaqo doonatay mise waxa lagu yiri ninkan ku mashquulo shaqo ka dhigo ay shaqo kaama dhiganine waxaan ma anfacayo qaranka oo waa qaranka Soomaaliland ma anfacayo waxaad ku wado ee ka jooji hadaadan ka joojin waa lagu yaa oo kale walaal maxaad ugu hanjabaysaa bandhar buluug aan soo xidhay waad leedahay qaran baad jibinaysaa oo kale taada kale aan ku weydiiyay qarankan adigoo ku qaaskay dunidana aan ka jirin muxuu yahay anagu cilayn Soomaali baan nahayo dad wada dhasho isku dhiigi isku dhaqan baanu nahayo haddana diinta u dhaxaysa maxay tahay wax kale aad sheegaysaa war waad khaldan tahay sidaada badan dambiile qaran baa tahay waana lagu xidhayaa صباح ساعة كدب صباح maxay tahay halkeebadii wada صباح wasiirada ee maamulka Puntland oo war ka soo saaray dhacday gobolka Sanaag taasoo dhexmartay Malaysia uu soo dirsaday hogaamiyaha Hargeysa ee Muuse Biixi iyo ciidanka maamulka Puntland golahan uu shir gudoominayay in isbuucani hogaamiye xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayuu war saxaafadeed meel badan kaga hadlay oo ka soo saaray waxaas ugu saameyn badneyd arintii Sanaag waxaana inuu war saxaafadeedka nuqul kamid ah arintaas lagu sheegay in weerarkii lagu soo qaaday wasiirka waxbarashada Puntland uu ahaa mid lagu soo gardarooday ka Puntland ahaana aysan u joojin doonin howlaha ay ka wadaan gobolada Sanaag iyo Sool ee hoostaga maamulka Puntland مصباحدي دونيديو مغان ويه ورباهني مغان الراديو وورباهن مغا ديرو ملايين تا اسلام كيو مجتمعات كدغيستبا واتي كمقصودين ومغان اودهان بلين راديو مغان واذاعتك هذا شا باهنتا
afkaarta ummadda soomaaliyeed kooda samaha jecel rediyo magan rediyo. dhinaca kalena haddaan eegno maamulkaasi galmudug ciidamo galmudug ka tirsan ee islamarkaana taabacsan kooxda ahlusunna oo isbuucani ka hortegay shaqsi la sheegay inuu miidaamaysnaa degmada gurceel kana tirsan gobolka galgaduud waxaa lagu qabtay nin ku hubaysnaa waxyaabaha qarxa islamarkaana doonaya inuu isqarxiyo ayaa ka hortegay koox beeleed taabacsanaa maamulka galmudug goobta ninkani uu doonaya inuu isku qarxiyo ayaa waxaa ka socotay munaasabad ay kooxda ahlusunna ugu baroordiiqayeen askar kaga dhimatay dagaal dhex maray ayaga iyo ururka al-shabaab waxaana goobta baroordiiqa isugu yimid madaxda ugu sareysa ee maamulka galmudug iyo odayaal dhaqameed ka kala socday deegaanka waxaana ninkani gacanta ku dhigay ciidamada galmudug ee taabacsan ahlusunna iyadoo markii la arkay ninkan qaraxa ku raran uu mid ka mid ah askarta ku dhiiraday inuu ku boodo halkaasna in lagaga guuleysto ninkan naftiis huraha ahaa si nabadgelyo ku dheehana in gacanta loogu soo dhigay. rediyo magan dhugunsashay dhigmihii dhadhanshay lankii dhooraay magan rediyo magwal bajeelay mudnaanta hadalkii midbii unufadaan ugu rediyo magan doo iibay dhabadoolow agagaarshay lankii dunida ka nool facebook baka dugga magan wali ku hale warar liimbagow bulshada inriyaa qaayaano baadkii nabadow rediyo magan rediyo midbii unufadaanu. markana xildhibaan daahir amiin jeeso oo shaaciyey in baarlamaanka soomaaliya la horkeenayo mooshin ka dhan ah ciidamada kenya ee kaga sugan dalka soomaaliya. xildhibaanka oo wareysi gaara siinayay laanta afka soomaaliga ee BBC-da ayaa uu ka hadlay arinta kenya kala dhexeysa ee dhanka badda wuxuuna tilmaamay in dowladda kenya ay wado ku xadgudub dhanka dhulka ah wuxuuna shaaciyey in dhowaan la horgeyn doono mooshin ay ku mideysan yihiin baarlamaanka federaalka soomaaliya laga gudbin doono ciidamada kenya kaga sugan soomaaliya. daahir amiin jeesow oo wareysigiisa dhinacyo badan oo ku saabsan xiisada diblomaasiyadeed ee labada wadan ka hadlay ayaa sheegay in kenya iyo soomaaliya aysan kala maarmi karin lana ixtiraamo darisnimada labada wadan hase ahaatee aan marnaba ayna gorgortan laga geli doonin sheegashada kenya ay badda soomaaliya ay sheeganayso ayuu yiri jeeso. wareysigan xildhibaanka ayaa kusoo aadaya iyadoo dowladda soomaaliya ay jawaabtii ay ka bixisay arinta kenya ay ahayd mid lagu xaq dhowrayo xiriirka wanaagsan ee walaalaha dalka kenya. waa tahay dhegeystayaal markana qaybihii qasaa'idooyinka ayaa mid ka mid ah qasaa'idooyinka dhegeysi حقي الله وكصعي هنتيد أن لقى سفيني سميع خير لقو ما شيء زكذا بحي زكذا بحي أركان تاشن تسل قورين زكذ واتير كصدحات نيجيبه وسبوريو زكذا بحي زكذا بحي حقي الله وكصعي هنتيد أن لقى سفيني سميع خير لقو ما شيء زكذا بحي زكذا بحي أكان تاشن تسل قورين زكذ واتير كصدحات نيجيبه وسبوريو زكذا
sekada bixi 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 sekada bixi saxariir ka dhowrno wa ku sarayni dayay sekada bixi 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 sekada bixi arkanta shante salgurin sekadu watir ka saddexaad ninkeebe usaguriyo sekada bixi 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 sekada bixi أحمد موتنا معي مكاجي سحر كدولي سيادي وقادي زكذا بحي 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 زكذا بحي أركان تاشن تسلقوين زكذا واتي كسدحات من كابي وسكوريون زكذا بحي 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 زكذا بحي أركان تاشن تسلقوين زكد واتير كسدحات من كابي وسكوريون زكذا بحي 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 زكذا بحي أركان تاشن تسلقوين زكد واتير كسدحات من كابي وسكوريون زكذا بحي 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 زكذا بحي waa tahay dhegeystayaal qasaa'idkaasi ayaa ugu dambeeyey barnaamijkeenii kulan wareedka warbaahinta magan oo toddobaadkan aad kala socoteen warbaahinta magan oo idinla socodsiinaya anigoo ah Ismaaciil Ibra Mr. Hiilow waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.